هلو السلام عليكم bartolka iyo qaraabadii yaa jooga waa taanu ballansanayn waxaan isleeyahay hadaahin baan islaa marka 2 daqiiqo dhiman insha Allah inta labadaas daqiiqo ka dhamaanayso waa iska sii hadaafeynaa salaam calaykum ugaas shaakir qofka ugu horeeya arka adiga waaye axmed maxamed xasan ku xigo shaxshaxle nuur shaxshax ku xigto yaasmiin guulane habareeryaal eedooyin walaalayaal aboowayaal kulli waa salaamantihiin xasan ciise adaani cabdulaahi salaad warninkii dariskayga ahaa baryahan nacay cabdixakiim naasir suraya degan aad baa umaadsantihiin bella belan miya habar yar sawda macalin wacalaykum salaam xabiibi waa kulligiin waa salaamantihiin 1 minute dhiman waxaan diidaa inaan soo daaho ballanta waa wax weyn insha Allah malay maqlamiya ama adiga ka hadlaysan yahay okay hadda ka waran Suleymaano hadda ka waran malay maqlaa Suleymaan may maqashaa hadda haye Soomaali maxamedey may maqashin ma lagu maqlaa hal mar la ii soo dhigay habar salaam wallaahi maama raana waa mahadsan tahay marka waxaan rabaa waqtigeena inaan uga faa'iideysano wixii aan rabnay inaan isku sheegno horta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta waxa waaye islaamka ka dhaxaysa ka bacdina teeni Soomaalida idinku salaamaya iska warrama seetiin ma fiicantiin aniga meeshaan maqaayadna ma aha meel kalena ma aha gurigayga waaye iga raali ahaada dadka meelaha dheer degan bes habareer thank you waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin hadii la maqlo okay waa wada marka dadka meelaha dheer degan oo waqti dambe u tahay waa yahay jaamaco iyo ku aawaya boowe abaadir waa mahadsantihiin kulligiin bas hadaa ay maqashaan okay waaye dadka meelaha dheer degan aad baan maaragtay uga cudur daaranayaa maayl aniga saacadan ka hor firaaqa ma soo heli karin maadaama hooyo ahay ilmaha inay kala seexi ay tahay barina iskool aadaan tahay aad baa u mahadsantihiin hadda waa soo ururteen 352 qof ku jirta aad u mahadsantihiin horta waxaan rabaa inaan idin sheego marka hore boggaan sababta uga soo galay live waxa waa boggaan dad badan ku jira because bogagga kala 5,000 qof bas ay qaadaan 5 qofna waa buuxsamayaan durbay buuxsamayaan marka waxaan u maleynayaa dadka Facebook hadda isticmaalaya oo halkan saaxiibka kula ahay waa qaar hooyo u noqon karo iyo qaar ayeeyo noqon karo runtii wali ayeeyo ma aanan noqon xuriyo meeshii ugu dambaysa habar ka hadlayaa bal xaggaaga ka yara dheere halkii ugu dambaysa waay aniga codka isku daya inaan kor u qaado xuriyo habar codka isku daya kor inaan u qaado alloore marka waxaan isku dayayaa waxaa laga yaabaa dadka intooda badan inay yihiin dadaan dhali karo aniga hooyo u noqon karo ama ayeeyo u noqon karo inta aniga igu daa ama iga da'weyn macallimiintayda xataa meesha ku jira ayagana waxa waaye ixtiraam isku leenahay iyo qaarna walaalo ayaa la wada yahay waxaan rabaa marka kelmadaha aan isticmaalo ka horta inaan idin sharaxo waxa waaye internetka dadka iskuma jeedaan badanaa dadkana isma kasaayaan ها حاجي ها نبدا قبا اوغاسكيغيو هذا نبدا قبا ما هدسنتahay waxa way maadaama la isku jeedin hada la ixtiraam la afiican illa isku waco Facebook alla iska dhex bartay la isku ma jeedo maadaama aan la isku jeedin ay dhagaha ma ay xanuun maxaan sameeyaa qaarna kor u qaaday ileen qaarna hoos u dhigay ileen raali ahaada yaa qayb okay maadaama marka la isku jeedo waxaan isticmaalaa kelmadda aboowe iyo abaayo qofkan hubo oo aan aqaano face to face oo da'diisa aan qiyaasi karo oo aan ogahay qofkaas inaan isku level nahay ama iska soo daba dhownahay aboowe u isticmaalaa qofka kale kelmadda ugu habboon oo loo isticmaali karo waxa waa walaal iyo walaalo macnaheedu wax kale ma ahane waxa waaye walaal ama walaalo ama walaal ama walaaley da' ma leh saasuu ogaado af Soomaaliga qof kasto qofka annaga dhaqan ay naga tahay hebelow hebel ma iska dhahna dadka waa dhaqankeena Soomaaliga
inaan ka tagno ma aha dhul kastoo gaalo oon joogno dad kastoo ajnabiya oon la joogno dhaqankeenna inaan ku dheganaano waaye dhaqankeenna maxaa waaye marka dhaqankeenna waxaa waaye wax kasta inaan ka hormarino hadal ixtiraam leh marka hadalka ugu fiican qofka da'diisa markaada aqoonin waxaad waa inaad walaala dhahdo walaala inaad dhahdo waaye saas la ajligeed telefoona iga soo gelgelayo raalli ahaadaya wax kaloo sameeyana ma aqaan inaan ka baxo soo noqdana ma raba marka walaalo inaad dhahdid waaye walaal markaad dhahdid ama walaashayda markaad dhahdid ama walaaley markaad dhahdid macnaheeda waxa waaye already waa qofkaas ixtiraamka igu sareeyaa siisa wixii rabtad u sheegi kartay aa u sheegaysaa salaantaa ku soo harta aniga aamina ahaan dadka ma ku qasbaayo waxa waaye habar su-aashaas waa ka jawaabi doona oo qimaarka cad insha allah habar waxa waaye salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaanta islaamka sida islaamka noo sheegay waxa waaye uma baahna wax weyn uma baahna ama inaad wadaad maxay ahayd kutubo dhameeye inaad tahay uma baahna fahamkeeda salaanta islaamka waxa waaye assalaamu calaykum markaad qofka tiraaho waa hal ajar waaye yaa salaamu calaykum waraxmatullaahi waa ajar kale wabarakaatu waa ajar kale soo marka waxaasoo dhan waa ka hadli doonaa walaalaal qamaarka anaa saartay sababaana u saartay iska dejiya amar maahane laakiin hadal waa la isku leeyahay okay marka qofka ama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dheh yaa oo salaanta islaamka ku salaam siiba dhallinyaradaa la hadlaaya ama tii soomaaliga ku salaam ama isu daba dhig markaad tiraahda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo qofka calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu inay tahay inuu kaaga qaado ay tahay dan markaas walaal iska waran walaal see tahay markaa tii soomaaliyeed u daba dhig laakiin dhallinyaradu sida ay sheegayso habar waa ka jawaabi doonaa goorta bahalkan aan dhigayo insha allahu laakiin dhallinyaradu sida hadda u badan tahay hi there of course yes iyaga hadday af soomaali ka saynin laakiin hi isnot ixtiraam ma aha mar kasta waxaad u dhurataan dhaqankiini soomaaliyeed mar kasta ogaada original soomaaliyatiin meesha ugu dambeyso ka timaadeen soomaali waaye marka habareeryaal eedooyin waa idin duceynaynaa waxaad samaysaan isbara afkiina bara waxaa bartaan qof dhan ood soo salaamayso ama kugu faca ahaado ama ha kaa yaraado ama hooyada oo kale ha ahaado hay inaadan ku salaamin hay salaanna ma aha qof aadan aqoonina salaan ma isaga salaami kartid yaa marka taas waa mid ma aha wax aniga dhib igu haya gooni aniga dhib iguma haysaan laakiin suubanaanta asaas ah maalin dhaweyto dadkii oo live videoga horta aan war idin siiya habeen dhaweyto waxbarashayba ay ahaydba wax aaga ka saayay live video ma jirin yaa wax aanka ka saayay ma jirin habeen dhaweyto koow aan bila alif wax maale baa hoos kaale tac karka laba le habeen dhaweyto qaxwadii shaahi ma soo shuban xasano waxaan arkay inaan anoo daahaayo markaa maan soo shuban laakiin dhaladii biyaha haystaa yaa marka ha ii baqina inaan oomo taasi waa taas waxaa dhacday marka waxa waaye hay ha ku salaamina ee salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qofkii haddaad ogtihiin qof weyn inuu yahay ama dadka telefishinada laga yaqaano ama wadaadada caalimada ah ama dadka waaweyn oo meelaha soo istaaga oo la garanayo da'diis ay garanayso inuu kaaweyn yahay aad og tahay markaas eedo ama adeer ama wax ixtiraama u raaci taas waa mid waa dhaqankeena waa runta amita bashaxta waa soo tijaa danjire waa runta alore taas waa taa waxaan rabaa marka maanta inaan laba arrinba idin kala hadlo kow waxa waaye barnaamijkan horta magaca u bixinaa because waxa hadaa magac loo bixiyo la isku dhexyaaca ma ogtahay horta weli ma kuu warramayaa la dhahaa horta weli ma kuu warramay oo ah waxa waaye waari maysida war ha ka haro yaa waari mayside war ha ka haraa la yiri annaga hadda war leeba waxaynu ku soo arooreen waa aragtay
kan dadka dilaa xataa wara isku soo hormariha oo wuxuu leeyahay la meeshaas bahal qarax dhigi doonaa waana lagu dhamaan doonaa marka warkii unbaa inaan hadalkii hagaagsano oo walba warkii waaba waramaynaaye inaan warkii hagaagsano oo walba warkii aan si fiican u dhigno habeen horena waa sheegay qaar baa igu foorjeeyo yiri aamina sheekh aamina miyaad noqon rabtaa horta gabdhaha u malayn maayo gabdhuhu diinta waa baran karaa laakiin inay sheekh lagu sheekh ma aqaan sheekad heblaayo la iska dhihi karo ma oge kolle waxaan noo ma aha sheekhna ma noqon karo anigu cilmigaas sheekhana ma lihi waa soo jecelahay waana bartaa hadda markaan yaraana waalidkay khayr allaha siiyo waxay dugsiga qur-aanka waxaan bartay ilaa 3 jusaan bartay haddana markaan soo weynaado aan qof weyn soo noqdo waa bilaabo qur-aanka waa bartaa laakiin anigu heeran cilmi ku gaarsiiyay ma lihi laakiin cilmi dhagoodkayga ayaa idin la qaybsanaya waxa waaye xadiis rasuulka kiisa wuxuu leeyahay ama qayrku hadal ama iska aamus ama qayrku hadal ama iska aamus marka maadaama dad islaam nahay waxa diintu nafarayso ama axaadiistii rasuulka ka soo arooray ay nafarayaan oo inooga tagay waa inaan ku dhaqanno marnaba marka ma dhici karto qof inaad taw ku soo tiraahdo af laga hadayso maxaa yeelay waxba lagu yiriba ama qayrku hadal ama iska aamus marka hadlayso waxaan umada kala geynaynin oo Soomaalidu isku diraynin oo faa'iido u ah ku hadal ma ku hadli kartid maahano ama maba haysid waxa kale ama waa adaaba iska wareersan soo maaha da iska aamus marka waxba ha sheegin ba iska aamus taas waa mid haddii marka xadiiskaas kaliya oo rasuulka kiisa aan annaga aan raaci lahayn waxba naga ma halaabeen afku sunlayaasha iminka afka dadka iskula diraaya oo dhan haday xadiiskaas kaliya u dhuggali lahaayeen oo ay intay u dhug yeeshaan oo meel fariistaan oo ka dhaadhici lahaa waxba ma halaabeen balaayana ma aanay maxay hatoonay ma aanay mana ku dhex dhacdeen xumaha ay maanta faafinayaanna dadka walaalaha waa ka tanasuli lahaayeen okay waxa waaye marka Soomaali waa kala tagtay maanta waa kala tagtay wayna kala socotaa wayna sii kala socotaa marka aqliga wanaagsan sameeyno aan adeegsano adiga marka maaha ina oga darto waa saas weeyaha maxamed axmed waa mahadsan tahay ama qayr shaqa miska ama waa runta waa akaykaas weey alloore Soomaalida maadaama ay kala tagsan tahay oo dad isku afa oo isku diina oo isku dhogora ah inkastoo aniga laygu forjooyo maaragtay kuwa madow maaragtay oo isla shaqeyn jirnaa waxay dhigi jireen adiga you just look like Nigerian you just look like Ghana asa hoosta waxaan ka dhigi jiray kay madoobe ana leedahay miya Nigerian oo waqti ay Ghana ya laakiin waxa waay in أنا ضدك إسكو سيدرين من آدنا نهاي دنبيان قالينا مدى من لكن الصومالي وحي كوكلا تغيسو هال كلمتنا هذا إن أنا يكو سيكلا تغين ضدك قال سوى قبصة برنامج كان وحي اللي يراه هورتا ولي مكو ورما هورتا ولي مكو ورما وحكا لما أهاني وحواية waxawaaye wax kala maahane in wixii aan isdhaano isu sheegno horta weli ma ku warama wixii wax badan jiro oo naga buuxo oo ku haboonayn telefishan in inta la soo fariisto lagala barnaamij laga sameeyo ku haboonayn laakiin sidan oo kale la soo gudbin karo tiim ba isu sheegaynaa waxa rabaa aad kaga sheekeeyo aniga intaana dhalan ka hor wadanka sidoo ahaa ma ogaa karo laakiin sheeko iyo taariikh iyo wax waalidka iyaga sheekeeyeen ogaa dadka hadda isku haysta in ama caruurta yar yarka masaakiinta uqubada laga galay dhalinyarada ee aan ogeyn wadankooda soo ahaa waxa raba in ay kaga sheekeeyo wadanka inta ayna gumaysiga markii lagu jiro qof walbaba waxa uu dagaalamayay in waxa la helo
xornimo in la helo oo xornimo maaragtay la helo gumaysigii markii laga baxay dowladda dhalatay dowladda musuqmaasuqa loo bixiyay anigu ma garanayo inay musuqmaasuqeeda in kale laakiin waxa igu maqaalo ah oo aabbahay allah u naxariistay iiga sheekeeyey qofka soomaalida berigaas shaqooyinka ay shaqaynayso waxay ahayd oo shaqada ugu sarreysa marka ciidamada ee askarta laga soo tago waxay ahayd guulaad bashiir habar yar orod adigu iska seexo habar yar macaan sabab loo caytamaa meesha ma taalle habar daalan haddaan ahana hadda waa soo jeedaayo 9kii habeenimo iyo waxa waaye 13 daqiiqo waana soo jeedaa oo waxaan ka hadlayay mandha hadalka waa ku dhaafay habar ama qeyr ku hadal ama iska seexadee waxaa dhacday marka shaqada ugu weyn oo Soomaalidu haysay waxay ahayd tarjumaannimo qof wadankii gumaysigiina kala gumaysan jiray qaar afka bartay inay gaalada iyo u kala tarjumaanaa Soomaalida shaqada kale oo ku soo xigto waxay ahayd farmiyeerinimo oo laga wado nurses kalkaalisooyin caafimaad ama shaqada saddexaad waxay ahayd xataa kalkaalisooyin caafimaad oo badan ma jiro laakiin qaar ahaa shaqada saddexaad waxay ahayd bitooni amaba adeegayaal intaas markii ay dhacday ka bacdi ayaa dadku saas u shaqaysan jir macnaha qofka marka ugu badan mushaar badan bamaanu qaadan jiro qofka ugu shaqada badan waxaa marka la oran jiraa la yiri farirdoodka xamar weyne qofka maraaya oo suud qurux badan xiran ciidamada waa istaajin jireen waxay dhihi jireen kuwa dhar cadaha istaajin jiray waxaa la dhihi jiray waryaa meeqa mushaar qaadataa marka qofka oo sheego ayuu oo intaasaan qaataa yaray lama mushaarkiina waa iska yar yahaba ama qofkii waa ama bitooni ama meel buu nadiifiye ka ama meel buu ilaaliye ka wax noocaas ma ogtahay ayaa waxa la dhihi jiray suudkan aad gashan tahay jaakadii iyo wixii uu gashan yahay suudkan aad gashan tahay wuxuu joogaa intaas oo lacag ah xagee ka keentay la su'aali jiray marka aniga dawladda noocaas ahaydoo musuqmaasuq lagu sheegay aniga ma garan karo ya waa iska daaya habar yar is dhageysan iska waxba ku mashquulin kuwa caytama iska dhaafa bogaan wuxuu leeyahay dad nadiifiyo wala nadiifinaya hadhowta iska dhaafa idinku waxba ha la qabee aniga aan is dhageysan bas okay ani marka waxaan ku soo gaaray dawladda kacaanka absolutely kacaanka ka hor dhashay aniga laakiin aniga oo wali aqliyaysan oo 3 jir ah oo kacaan ku dhashay ya marka uu dhashayna caruurnimadii ayaa adii kaga sheekeyn karaa laakiin wixii iga horeeyay markaa ma ogi caruurnimadii maxaan ku soo gaaray waay aniga maaha inaan kacaankii la dhacsanahay laakiin dawladnimada ayaa rabaa inaan idin sharxo boos kacaanku dawlad ayuu madax ka ahaa iyo waxa hadda aan dawladnimo u haysano say kaafiye kala dheer u yihiin ya dawladnimadu berigaas jirtay dadku hebada ayaa kacaanku qabsaday dadku siday hadda u dhaga iyo indha baraxsan yihiin ma ahayn siday u baraarugsan yihiinna ma ahayn sida ay maxay ahayd toonay ay hadda inta u ilbixin wax kasta u og yihiinna ma ahayn saas la ajligeed aniga caruurnimadii waxaan ku soo gaaray adeesho aniga waxaan ku soo gaaray ka bilaabay xanaano caruur ilmaana ila dhiganaya ilmahaas ilmo Soomaaliyeed ay ahaayeen hadda goorba waa maxay ahayd toonay qaarna waa nool yihiin san filaayo oo inay qaar raxta inay iska kee dhageysanayaan laga yaabaa xanaano caruura jirtay sharciga wadanka oo la jiray sharciga wadanka oo la jiray waxay ahayd sida hada dadka qurbayaasha ku nool ama carabaha ha jiraan ama afrikaanta xaggooda ha jiraan dadka meelaha dawladaha leh ku nool anuga waxaa la ogolaa iskoolka in lagu geeyo xanaanada caruurta 4 jir badana laakiin lama qaban jirin 4 jir cunuga waxaa la dhihi jiray canugan ma isku kaadiyaa canugan ma isku saxaroodaa canugan ma yaqaan sida uu suuliga u isticmaalo bal eeg heerkan mareynaya
intaas loo mari jiray kabacdi shan marka laga 4 jir ilaa 5 jir xanaanada caruurta loo qaban jiray 4 jir ilaa 5 jir xanaanada caruurta 5 jir ilaa 6 jir markii dambe wuxuu ka dhigtay dawladdu 6 jir ilaa 7 jir fasalka koowaad loo qaban jiray 6 jir ilaa 7 jir 7 jir ugu dambeeyay laakiin haddana saas oo tahay waxa la sameyn jiray qof walba xilli uu iska soo xasuusto maadaama wadan dad iska tabar yar aan ahayn qof walba xilliga uu soo xasuusto ayuu cunuga iskoolka geyn jiray markaas wuxuu ku qasbanaan jiray ilaa da'da lagu xirayaa moogta cunuga meeqa sano jira hadduu yiraaha 9 sano jira ama 10 sano jira dama laga qabanayo marka waxay qasab ahayd cunugii weyn xataa hadii iskoolka la keeno in uu la yiraahdo 7 sano jira oo ah malka halka ugu dambaysa oo canuga uu ku bilaabi karo bood xanaanada caruurtu qasab ma ahayn option ay ahayd wax qofku kala doortay ahayd marka 7 jir waay oo ala dhaha waxa dhici jirta marka canuga weyn iyo adiga ina iskuulka isla fadhiisteen saasay horta ku timid inayna ilmaha oo Soomaaliya iskuulka markay bilaabaan inay iskuul wada ahayn waxa jiray wax la yiraahdo folio familia ama warqada qoyska dadka reer miyiga ah ma aynan gaarsiisnayn oo wadanku horumarka ilaa heerkaas maanu gaarsiisnayn laakiin habar Saciid waa jira Bambaris laakiin Bambariska oo one time use ka la tuuraya ma jirin waxa jiray shukumaano canuga lagu duuduuba ka bacdina bira lagu xiro biinan lagu xiro ayaa jira habar raala ahaada marmara su'aaliin waa iga faham badan inta hadlaayo hadda waan dib u akhrin doonaa insha Allah dadna kasta ma ka jawaabi doonaa alore iskuulkii waan ka baxnay Soomaa folio familia jiray ama ah warqada qoyska oo qoyskaasi uu isa soo qoraayo maxaa dhici jirta marka qofka marka miyiga jira oo canugiisa iskuul u raba qof qaraabada ah oo magaalada joogo la soo xiriiri jiray si dad badan ba dhacday ka bacdina halkaas ayuu ka canugiisa ka qori jiray qofkaas kale ayaa qoyskiisa ku dari jiray warqadiisa qoyska ku dari jiray marka waa iskuulka markii lagu geynayo dokumentiga laga raba waxa koow ka warqada dhalashada maxaa ku qoran marka dhashay sanadkaas ku dhashay meeshaas hooyo magaceeda heblaaya hebel aabaha magaciisa hebel iyo da'dii taariikhdii warqada la sameeyay folio familia danjiro exactly wasaas qofka miyiga jooga marka saas u sameyn jiro qof kale oo qaraabada ayuu soo raadin jiray oo saas ka dhigay jiray iskuulka saas waa lagu dhigay jiray iskuulada marka maxay ahaayeen dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare saddexdaas markii laga baxo canuga waa qaan gaaraya markuu qaan gaarana ilaa dugsi sare ka baxdo taasar ma laga rabin oo munishibiyo taasaraha munishibiyada ama taasaraha dawladda hoose waxa laga rabay marka aad dugsiga sare dhamayso oo xalana ka soo baxdo intaas taasarayaasha ardaynimada isticmaalee oo markaas ay noqoto ina ama jaamacadda u gudubto ama shaqo raadsato laga rabaa taasaraha munishibiyo ama taasaraha dawladda hoose lacag yar la dhiibi jiray taasarahaasna waxa laga goyn jiray dib loogu noqon jiray warqadii qoyska oo diiwaanka ku jirtay qofaan marka warqada qoyska lahayn taasara ma loo sameey jiray qofka marka ama haweenada ama hayraada wuxuu ku qasbanaa koo warqada qoyska in uu horta sameeysto ka bacdi na loo sameeyo warqada aqoonsiga muwaadinimada hadda loo u taqaanaan idinka annaga laakiin taasara munishibiyo aan iska dhihi jirnay ka bacdina sidaas ayuu qofku shaqadii iyo wax kasta ku jiray wax kastana wadankaaga aad joogtay baasaboor iyo waxaas uma baahnayn meel kasta aqoonsi waxa ku noqonaya taasaraha munishibiyada taas waa mid kale waxa ku soo haray arrimahan hadda nagu soo noqnoqdo oo waqooyiga koonfur xasaasiyada badanna wata annaga qaarkeena aan sida jirac isugu soo kadoodanayn markaa maqalno qaarna ay normal la tahay qaarna aanay waxba ka qabin waqooyi iyo koonfur dadku dad walaala ay ahaayeen waliba isdacaayadeeya
oo ismaadaysta habar yar haa bas waa jiray waxaa jiray basaska la yidhaaho shitaawe oo aad u dhaadheeraa oo dowladda hoose ay lahayd ana xamarland ka hadlayaa iyo basas kale oo gaadiidka dadweynaha layloon la dhihi jiray oo gobolada aadi jiray iyo baabuurta kale oo waaweyn oo gobolada maxay ahayd toonay aadka u dhaadheer ka hadli jiray kollay baska xamar waa ka jiray hargeysana waa ka jiray waa mahadsantiin okay inta kale ma hubo caasimadaha waddanka ku soo haray berigaas maadaama la midaysnaa oo sida hadda loo kala go-an yahay aanay ahayn caasimadaha waddanka waxay kala ahaayeen 4 caasimood oo ugu waaweyneed caasimada koowaad xamar ay ahayd caasimada labaadna waxay ahayd hargeysa caasimada saddexaad waxay ahayd kismaayo caasimada afaraadna waxay ahayd baydhabo maya kamaanay jirin waa runta kamaanay jirin waxaan u malaynayaa in kulli xamar loo soo doonan jiro warqadaha aqoonsiga gobolada kale xataa saasaan filaa haddaan qaldana ilaahay ha cafiyo uguma talagelin inaan information qalada bixiyo caasimadu saasay kala ahaayeen mid waliba waxbay caan ku ahayd dalkana waa isku furnaa xuduud inta marto ama aad bas raacdo oo aad meesha ugu dambayso tagtana qof inta ku joojiso ku dhahaysay intay u socotaa iyo intay galtaa ma jirin anaga maadaama anagu arday iska ahayn oo canjeerada guriga hooyadood ka soo cuna iskoolkana taga maadaama aan ahayn qabyaaladu wax weyn lama ahayn qabyaaladu wax weyn mana la ahayn waa dhici kartaa axmedow inaan isdaba mariyo number 3 iyo number 4 laakiin kollay sidaasay kala ahayd qabyaaladu wax weyn mana la ahayn badanaa haddaadba qabiil magaciis maqlayso adoo iskool jooga dhiif iyo qaliilay ahayd iyo qof dadka ka sheegan qabiilka xiisan jiray markaaseetu waa xasuustaa maalintii ugu horeysay kalaaska dugsi sare anoo dhigta ayaa gabdho walaalahay oo kalaaska ila dhigta ilaahay amarkiis ardada meelba sheekay ka bilaabataa la yiri qof walbaba adiga yaa tahay ayaa lamana yaqaan yaa tahay wax la yiraa maba la yaqaanba adiga yaa tahay ha waa lahayd hargeysaha adiga yaa aniga yaa laygu yimid war heedha telefoonkan war heedha marka kaleba telefoon ima rabe ee caawa maxaa telefoonada soo diray aniga markii laygu yimid adiga yaa tahay kelmad waxaa jirta marka hooyadayna bartay marka caruurta yaryar ahayn yaa tahay qofkii noo dhaho Soomaaliya ahay dhahay wana lagu abaabiye maya habar yar aamina sharma arkay habar la iskuma dili jirin maba la isweydiin jirin ba bas markaas aniga Soomaaliya ahaan dhahay waxa la dhanaaya Soomaali ma ahana maxad Soomaali ka tahay markaas ay dhaha taagtaag wallahi been idin ma sheega ilaahay baa iga sareey subhanahu wa ta'ala igu ogaana been idin sheegan na Soomaali ma tihid Soomaali afmaad anaga nama Soomaali orod baa laygu yiri waalidkaas oo weydiiyay waxa la raaciya marka adigu ma midgaan baa tahay barigaas hada midgaha laga dhaadhacsiyan laakiin ay ma ahayn ilaa dad jira oo Soomaaliyeed ahaay laakiin sidaas marka adiga yar tahay moogtood caruur tahay wixii aqli ku kala garato wixii malihid moogto okay waxa dhacday ma midgaa tahay leegu yir waa xasuustaa waa baxnay waxa aadnay hooya u tagay wixii baa murugigu haay waxa hooyo gabdhahaas asaan ugu dhahay qof walba yaa tahay la dhahay qof walba dadka qaar waa sheegan qaarna ma sheegin qaliif dalab abo waxaan ka hadlayaa walaala waa dhici karta inaan jareer ahay waxaan ka hadlayaa jareer haddaan ahana waaba ugu fiicanahay ummadda dadka ugu fiican waaya waxaan ka hadlayaa walaal wixii xasuustayda ahaa ee noloshu siday ahayd waa mahadsantahay okay maxaa dhacay marka hooyo waxay ku tir Soomaali baan ahay hawga dabcin haddaad isku ma ceeb ma aha habar yar in midgaan baa tahay laygu yiri ceeb ma dawaa wax aniga igu dhacay waaye ceebta waxaad u taqaanaan
إن هذا كوفري وقوي سو عيسان تاسع أنا وعيب وأقانا تن لكن وحي كوكو دعينا كشك سعيب معها وأنت جاي وحلي هاي وحكلا يقول تري وحمد قال لي راه مجران وحمد قال لي راه وأنا إذا بضره وين شكذا إذا بلدقي سوي سعتها إلينا وأنا إذا بضره وين غير وما قفوا هاي النفط إذا كشكينو جاي وأنا إذا بضره وين وحجرنا ملها وأنا dad isku amarku taaglaynaya oo ayaga isyaasaya hooyo ha ka mid noqonin bay igu tiri hana u dhaafin Soomaali baan ahay sidii baan yeelay maalin dambana layma weydiinin ma kala tahay marka aniga oo ama 16 jir ama 15 jir oo hooyaday saas igula talisay oo jawaabtaas bixiyay hadda inaan danaynayo قبيل iyo wax la kala yahay idinka hadda ma idin la tahay ma danaynayo because hadda oon weynahay oo aan ogahay cunsuriyada Soomaalida kana midgaana iyo kana hebala iyo kana jareer xataa wax ka jira inayna lahayn oo wax falsa oo iska dhaadhiciyaan ay tahay ma u malaynaysaa marka inaan hadda anoo qof weyn danaynayo xiiso uma hayo ubax waa mahadsan tahay habar yar laakiin anigu xilligaas sida aan u aqiinan ka hadlayaa koonfuriga waqooyi aada u mahadsan tahay Somaliland iyo Soomaaliyana ma ahane waxay ahayd Somaliland oo Ingiriisku gumaysto iyo Somaliland oo Talyaanigu gumaysto ay berigi gumaysiga ahayd aniga gumaysigu ma soo gaarin waxaan ku soo gaaraa ka hadlaa waa mahadsantiin marka hadda ma danaynayo marka ya ma danaynayo hadda reer hebelaa tahay jareeraa tahay kanaa tahay hebel waay xagga baaka kaas waa hebel kaas waa saan kaas waa waqooyi kaas waa Somaliland kaas waa hebelow kaas waxaas aniga xiise ima hayo maba ii qaba kartaba ya maxaa yeelay hadda waa soo duqoobay qof weynaan ahay ayeeye haddaan noqon karo oo ilaahay iga dhigayo maanta caruurtayda caruur yeelan kara waana yeelan mooye marka wax xiisaa oo hadda ay haysaa ma jirto taas waa mid hadda marka maxaa keenay fiir inaan xiisayahay waxa cadeynaya inaanan baqdin ka qabin maxaa lagu dhihi doonaa waxa cadeynaya ina caawa ku dhiiranayo oo ina intaan Facebook live soo galo saan rabo u hadli karo taan naftirkeeda xornimada ay ka mid tahay Hargeysa waxaan tagay anoo 20 sano gaarin markii ugu horeeyay aan tagay meel wanaagsan oo fiican welina dawladda jirtay ayay ahayd of course hadda wax meel kasta u dhisantay uma dhisnayn laakiin maadaama caasimad labaad ahayd way u ekeed inay caasimad labaad ahayd taas waa mid waxaan rabaa oo kale inaan wax ka iraaho fanka hadda xinka galay oo reer hebasha galay waxaas ma jirin horta waxaa ogaataan fanaaniintu waxay la abuurmeen radio Hargeysa kadibna waxay la abuurmeen radio Muqdisho labadana waxaa horeeyay radio Hargeysa taariikhda lama bedeli karo saaxiibayaal lama bedeli karo wax ma lagu dari karo waxna ma laga dhimi karo lama xumayn karo lama maroojin karo loomana yeeli karo daxal okay waa mahadsantiin habar waa mahadsantahay waxa waaye marka taariikh wixii hadda adoo shalay dhashay ma maroojin kartid wixii taariikh ahay taariikh ay noqdeen Hargeysa radio Hargeysa koo la aasaasay markii la aasaasayna fanaaniin baa lala aasaasay radio Hargeysa fanaaniintii lala aasaasay ayaana fanka Soomaalidu ku bilowday horta taa ku bishaareysta aniga dad idinka waaweyn iga waaweyn iga dhalin badanaa jooga inay idin sheegaan in ahayd waana idin sheegan saan filaaya idinka waxba maqleynina dadow taas waa mid ta kale waxa waaye kadib radio Muqdisho la aasaasay markii la aasaasana waxa lala aasaasay ayadana radio maxay toon fanaaniin
dumarku marka hore ma heesi jirin daxal habareer mirra u aqaan daxalka okay dumarku ma heesi jirin sidaas la ajligeed gabadhii ugu horeysay oo heesta maalin dhaweeto waxaan arkayay meel halkan laga qaldaayo oo taariikhda la qaldaayo jirka waa ay xanuunaa aniga intaanan ogeyn waa maba ogiba cidna uma haysto laakiin taariikh aan ogahay oo Soomaaliyeed oo la qaldaayo runtii aad ay dhibtaa waxaan arkay taariikhda oo la qaldaayo gabadhii ugu horeysay oo heesta oo dhiig Soomaaliyeed ka dhalatay guduud carwo waay ilaahay caafimaad ha siiyo waa nooshahay waxayna ka heesta waxay ahayd radio Hargeysa waayo radio Hargeysa ayaa horeeyay asaaska sababtaas waaye sababta loo yiraahdo Hargeysa waa hooyadii fanka saas u ogaada wax lagu qabsan karo ama lagu la murmi karana ma aha koofur ku soo hirto koofur gabadhii ugu horeysay oo heesta gabadhii ugu horeysay oo Soomaaliyeed oo heesta waxa waaye guduud carwo khayr Allah siiyo way nooshahay ilaahay meel fiican ha geeyo ilaahay adduunkana ha ugu naxariisto aakhiradan Allah ugu naxariisto xanuunka hadda iminka hayana ilaahay ha ka dulqaado taas waa mid gabadhii ugu horeysay oo marka radio Muqdisho ilan kadib la aasaasay Soomaha gabadhii ugu horeysay oo radio Muqdisho markii la aasaasay koofur ka heestay waa Khadiija Cabdullaahi Dalays sharaf iyo ciise Allah siiyo oo hadda iyadana nool waxaan rabaa kala marka inaan idin sheego waxa jiri jiray gabdhuhu intaanay heesaha bilaabin rag codka dumarka halka looga baahan yahay buuxin jiray haday maanta inta ku jiraan na ilmihiisi way ogyihiin okay Umar Dhuule fanaan u ahaa wuxuu ahaan jiray berigii dumarka marka loo baahdo because codkiisa wuxuu lahaa cod dahabiya oo sidii la rabo loo bedeli karo oo marna la yareyn karo soo ma jiraan dad codka marna yareyn kara oo tuunka dhuubi kara marna tuunka weyneyn kara soo ma jiraan ilaahay hibadaas ayaa Umar ilaahay u siiyay xaman mayno waa mayd maanta dhulku ka hooseeya caruurtiisii baana joogta hadaan been ka sheegayo hadla doonta cod dumar meesha looga baahan yahay intaanay guduuda iyo soo heesin waaya iyo gabadha la yiraaho Khadiija Cabdullaahi Dalays asaga ayaa heesi jiray codka dumarka riwaayadaha marka la dhigayo waxa jira nin kale oo majaajilista ah oo asna dhinta Allah u naxariisto oo dhagjar la dhaho dhagjar asagana sida dumar u labisan jiray waayo dumarka majaajileey ayaa aad u yaraa xilliga ama wax jilaaya ha iyo huriyo ha ubax waa runta habar yar iyo huriyo Allah u naxariisto wuu dhintay ilaahay meel qayb u hageeyay okay hor kale aan ku soo noqonaa waa important mana raba maalin kale inaan ka hadlo hadii aan loo baahan Hargeysa waa hooyadii fanka marka la leeyahay marka raba inaad ka dhaadhacsiyo hadalka ya garta ma gasho gar marka hadal marka hadlayso waa inaad kan runta ku hadasho ya ma gasho halkan ma u xeyn kartid halkanna ma u maroorin karto waxana waa taariikh dhacday anaga ayaa waxaan nahay bulsho hadalo wax ma qorno maanta hadaan ahaan lahayn bulsho wax qorta lama murmeen wax kasta waa la qori lahaa ayagoo qorana laga tagi lahaa laakiin ma nihin ya okay Hargeysa waxay hooyadii fanka ku noqoto koow waa halkii ugu horeysay oo laga bilaabay radio Muqdisho laga aasaasay laguna bilaabay kooxa radio Muqdisho radio Hargeysa halkii waa radio Hargeysa laga aasaasay kooxna waa la dhisay saas horta koow waxay ku noqoto hooyadii fanka labo ilaa hadda aniga run idin sheega hadalkayga saa doontaa un kala qaato saa doontaan hadalkayga u qaato waana idin sheego waaba ku tala galay aniga ama iska qaata ama ha qaadanina ama maxay toonay hadana idinka dhexdiina koofri waqooyi isku dirro ama Soomaaliya Somaliland whatever ay u taqaana idinka idin jirtaa laakiin sababta Hargeysa hooyadii fanka u tahay oo labaad waxa waaye
hargeysa fanka waa u jajabneed weligeed ay u jajabneed riwaayada inta laga dhigaa haddii la dhaho tiyaatarka waa buuxsamaa ma ahane tigidhada waa la joojinaa ma ahane waa lagu kala baxaa meesha waxa waaye ciidameen la keenaa xataa midda kale waxay ahaayeen dad hal abuurka u sahlan yahay hal abuurka ayaa u sahlan soomaalida qofba ogow qayb aan wax ku fiicnayn ma jiro hal abuurka waa u sahlanaa dadkaas guryaha badankooda kabanaa yiile xataa haddii fanaan joogin kabanaa iska yiil saas la ajligeed ayay hargeysa ku noqoto hooyadii fanka mar labaad wax laga murmi karana maaha wax hadda af lagu bedeli karo oo inta wax la walaaqana ma aha xamar maadaama ay caasimad ahayd dowladna aan hadda sidaan hadda u kala go'go'sannahay aanan kala ahayn oo hal dowlad aan lahayn fanaaniinta la isku dhafi jira marka dowladda isku dhafi jira waa la isku dhafi jiray qolada xamar qaara hargeysa loo bedeli jiray soo shaqaale dowladeed ay la ahaayeen qolada hargeysa waa la soo qaadi jiray oo waxa la soo bedeli jiray xamar isku dhafkaas la isku dhafayna waxay dhalisay marka in fanaaniinta isdhex galaan ka bacdi waxaa dhashay fanaaniin kale oo la yiraahdo xooga dalka kadib waxaa dhashay booliiska heegan horseed xooga dalka heegan maxay ahaatoon oo ah booliiska kadib guulwadayaashii oo iyaga aan la jeclaa jirinba ilaa waa guulwada lama jecla kacaankee la dhasheen iyagana koox samaysta halgan koox kale ayaa jirtay oo shaqaalaha samaysteen oo xusuus la yiraaho haddana waxaa jirta koox kaleeto iskaashatooyinka samaysteen koox kale jirta oo danan la yiraa aanu malayna ururada shaqaalaha ama ahaayeen taloom ururada shaqaalaha ahaayeen mooj inaan qaldan waa laga yaabaa sidaas ayay marka maxaa dhacay marka fankiisu sida uu ahaa waxaa daba socday oo marka ilaa hal mar mugta ma ka wada hadli karay oon rabaa iyadan inaan idiin sheego oo waqtigii gumaysigu intuu jiro weli bilowda fan banaadiri la dhahayo banaadiriga soo ku bilowda waaye banaadirigu wuxuu ku bilowday hindida maaragteen filimada hindida aan laga koobiyey banaadiriga iyagana yaa heesi jiray iyagana markii dumar loo baahdo nin cabay la yiraaho ciddii hore u garanaysa ayaa ka mid ah dadka heesi jiray oo dumar iska dhigi jiray iyagana maanay jirin dumar markaas heesa ma jirin maxay marka ayagu fankii kale kaga duwanaayeen fankii waxay kale kaga duwanaayeen waxa waaye gabar qurxoon iyo wiil nuuraya kor la soo saaraa gabar iyo wiil kala hoose ka heesayaan sida hindida maaragtay u heesaan oo playbaga kuwaan afka uga jilaan oo kale ay sameey jireen waxaa dhashay markaas dowladnimadii waxaa la qaatay xornimadii dowladaa dhalatay tukala haddana dhalatay wax yar waa la afgambiyey kacaankiyaa yimid kacaankii markuu imaaday waxaa jiray marka nidaam iyo kala dambeyn riwaayad aan lasoo jasuuraynin oo aan loo soo fadhiisanin ma aanay habari anaa ka sheekeyn doono boosaasana insha allahu ma aanay jirin ama hameynda ha lagu dhigo ama hala hargeysa ha lagu dhigo ama xamar ha lagu dhigo ama kismaayo ha lagu dhigo riwaayad kastoo jasuuray lahayd jasuura maxaa waaye marka macnaheeda waa kooxda faafreebka ha iftina wasaaradda waxbarashada ahayd kooxda faafreebka ahayd kooxdaas faafreebka riwaayadda waa usoo fadhiisanee waa fiirsanee barooba wax la yiraaho ayaa laga dhigayaa baroobada markii la dhigo kooxdii baa soo fadhiisanaysa oo wasaaradda warfaafinta ka socota hadday akhlaaq darro badan ku jirto fanaanka alifayaa la weydiinaya hadda riwaayada idinka wada aragteenaa jirta oo ku jirta youtube-ka oo la yiraahdo hablayo hadmaa guursan doontaan oo weliba boosaskii sida loo dhigaayay gabdho kale ay dhigeen oo sida originalka aan ahayn oo waxaan u malaynaa wax originalka dhigaaya waxaa ka jirta amalayna ma aqaano telefaynus ishag hibo waa badan yihiin riwaayadaas oo kale waxaa ku jira waxyaabo oo dadku dhibsan karaan
sida heesta qamar qaadayso iyo booska qamar cabdullaahi xarow ay jalayso kale laakiin dowladda waa fasaxda waxay u fasaxda maxay ahayd dadka ayay dadweynaha ayay uga digaysa anshax xumada wixii marka dadka fanka dhan muxuu ahaa fanka waajibkiisii hebel fanaan xagga ka soo heesayo qabiil u heesa iyo mid xagga ka soo heeso nin meel madaxweyne ku amaana ma ahayn xaalka maxamed siyaad shuuci nidaamka shuuciga ku dhaqmaaya 24 saac la amaano dhigi jir waa la amaani jir laakiin inta ka soo harta fanka intiisa kale wuxuu ahaa inay dadka hanuuniyaan oo haasaawiyaan waxa kuugu filan heesta ay hiba maxamed hiba nuur qaado ya oo leedahay dadweynahan hanuuninaa haasaawinaa danta ku hagnaa alaare haddii had wax xun ku jiraan absolutely bartaasaa lagu joojinaa haayadeed bay ka tahay in aanan maxay haytona cidna loo fasaxaynin maxaa marka dhici jiray marka waxaa dhici jiray abwaanada qaar waa la xiri jiray maxaa loo xiray sangub iyo maxay haytona abwaan hadraawi iyo sababta loo xirxiray ma taqaanaan waxa loo xirxiray heesa ay sameeyeen oo riwaayada ku dhex dareen ama riwaayada ay alifeen aad dawladda kacaanka wax ka garata sida aan koon ugu socda waana la xir war oo koombahan hadda nool ayaa isaga naftirkiisa riwaayadu sameeyay isagu ugu ma jeedinba waxa la dhigi jiray riwaayad banaadir xamrey yaa arkay sameeyay xamar baa dawladii lunsataad ka wadaamiyaha la dhahay oo kombe waa la xiri lahaa wallahi faracideeda ku fakaday wax alla wixii kacaan ku dhibsado ma kala lahayn reer koonfur reer waqooyi iyo maxay toon hargeysa laga soo sameeyay xamra laga soo sameeyay wax alla wuxuu dhibsado kacaanku waa joojin jir waana la xiri jir nidaamka shuuciga markaan leeyahay waxa waaye adduunka barigaas waxaa qabsaday nidaamka hanti wadaaga cilmiga ku dhisan wax la yiraaho iyagu u baxsadeen laakiin hanti wadaaga cilmiga ku dhisan ay dhigi jireen sidaas ayaa dawladdaasi ay qaadatay nidaamkaas maadaama ay qaadatay waxaa loo kala baxay Warsaw iyo NATO Warsaw waxaa hogaaminayay midowgii Sovieti NATO-na waxaa hogaaminaya Mareykanka markaas maxamed siyaad dawladdiisii waxay dooratay in ay gaashaanbuurta Warsaw noqoto maxaa yeelay nidaamka hanti wadaaga ah iyo shuucigii oo isxambaarsanaa ayaa iyadu ku dhaqmaysay saas la ajligeed ayaa halkaas u iilatay ayadu ma garat waana ku nabad qabnay oo waa ku bas qabnay inkastoo dawladdu wax hoos ka walaaqaysay laakiin aanu xilligan ka sheekeynayo waa xilliga caruurnimadeyda oo ma fahmi karinba wax la walaaqayo iyo wax kale oo jiro iyo ma garanayn sida hadda caruurta yar ee sabiyada ah ay ugu dhex jiraan siyaasadana maanay jirin sababtuna waxay tahay wax kale ma ahane meheradan lahayn canugu wuxuu haystay iskuul buu aaday hadduu miyi yahana xoolaha la raacsanayo ya dadku qof walba wuxuu cuno si u soo saaran lahaa ku mashquulsanaa kacaankana waa laga baqaayo awood buruhu dadku ku haay qofku arka madaxuu jabihay qofku rabana waa xiray isbarbaraya ma jirin meesha saas la ajligeed dadku booq iyo rabsho iyo balaayo iyo ma jirin qof badantiisu ku mashquulsanaa mar dambe oo xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed oo madaxweynuhu inta aasaasay haddana yir ana xisbigana gudoomiye ka ah la yiraahdo kan kaliya taliya waay markaas aa mucaaradku xataa bilowday waxaa ku soo haray inkastoo aan hadda wax badan live ahay oo aan rabo inaan break qaato baartuuga insha Allah soo noqdo waxaa ku soo haray maalin walba hamajiye in ma ana dhahayn waxaa jiray oo kale dawladda nidaamyo badan oo ay leedahay waxbarashada dadka waaweyn hooyada haddii aanay iskuul soo dhigan ama aabaha aanu iskuul soo dhigan waxbarashada dadka waaweyn seeraale la dhihi jiray seeraale habeenkii la dhiga jiray because waa waalid waxaan caruurtii bay maaragtay iskuulkii ka keenay caruurtii bay casho siisanayaan markay caruurtii cashooyinkooda siisaa ay dareersan jireen iskoolkaas ay dhiga jireen maalin kale aan ka hadli doonaa sidii af Soomaaliga lagu qoray iyo sidii maxay waxa loo tagay iyo qaabkii iyaduna mar kale ka hadli doonaa
su-aasha hadda soo noqnoqoto caawa oo ah asaydi horta asay runa maba ahayn, asay nabadeeda iska ahayd. waxa looga dan lahaa waxay ahayd in dadka horta ay ogaadaan in hal qof mudaaharaadi karo, inuunan qofkaasi u baahnayn boorar waaweyn inuu soo qaato, inuunan u baahnayn inuu qori inta qaato dadka bambeeyo. qof qura inuu wax ku baraarujin kara dadka. ma ahayn qasab ma ahayn, waxaaga ma ahayn, ma ahayn oo kale wax kale ma ahayn. haddana waa soo dhammaanaysaa insha allah, mar kalan ka hadli doonaa, laakiin qodob kalan kaga hadli doonaa waa iyada nafteeda sheeka dheer wadato. marka su-aashiinii waxaan u malaynaa oo marada cad inaan ka jawaaba umalayna insha allah. halkaasoo caawa noo joogayaa barnaamijkii ahaa horta welima kuu waramay. insha allah midka dambe waxaa kaga hadli doonaa bogga kale aan kasoo geli doonaa, waxaan kaga hadli doonaa ilaahay kuuma samadiide arrintii kaniiniyadii iyo belavita haddii la yiraaho. waxaa kuu soo haray anigoo aan rabin inaan ku dheeraado, oo laakiin waxaan rabaa inaan sheego akhlaaqda waa wax weyn waaye. akhlaaqdu waa wax weyn. boggaan aniga kayga ah anaa iskale, anaa samaysto. saa adinka kuwiina u samaysateen magac ugu qorateen oo kale u samaysto. ma kugu qasbin soo laagaree ma ku dhihin. dad baa akhrisanaya oo ku xiran. insha allah maalinaan ka hadli doonaa, waxaan ka hadli doonaa effectiga saameynta oo social media ku leeyahay dhaqanka dadka haddii aan la yiraah. laakiin hadda ma ah. markaa maalintaas ka hadla kadib wax muhiim ah oo social media ku saabsan insha allah idin sheegi doonaa. macno ma sameynayso marka qofaada waxba ku darsan, inta siinin koob biyaah, koobkaas markiis oo biyaa aada u shubaynin kaa rabin, inaad qol mugdiya inta gasho kasoo caytanto wax macno ma sameynayso. qofka marka maanta kuwa adkaysto, berri kuwa adkaysto, berri kuwa adkaysto. aniga berri dambe ilmahayga u dhiibaa, waxaan leeyahay hooyo facebooka inta la garay hooyo haa af soomaali fiican ayna ka saayaan, hooyo kuwa caytamaayo inta ku jiro kulligood baloog saara ka bixiya meesha. simple as that. shactiro lama idin gafino markaas. waxaa fiican waxaa idinka dhaadhacsan ma iga dhaadhacsano aniga. waa iska daalaysiin leh ma iga dhaadhacsano. oo waqooyi koonfur igama dhaadhacsano, somaliland iyo soomaaliya ma kala jecli. waxaan idin sheegayaa waxaan isu haystaa markaan runta idin sheego because qabyaalada waaye waxa ceebta ah ee qabiilka ma aha. qabiilka qof walba meeluu ka dhasho kasoo askumay, waa sidii digir la tallaalay oo kale waaye. digirtaasi inin dhulka la geliyay oo biyo lagu shubay kasoo askunta soo maha, saasoo kale waaye. ya marka ani